محمد أحمد بكال أو عراق مقع دير أرنتاس أو لحديدي إن سومالان لغو عسوريي أما بلغا شيكت هطبا إن فنانكا حتى يا لجوغنا إن بالأرنتاس نوغور بدر كوسار waad mahadsan tahay waxaan caawa halkan soo fadhiistay horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland sida fiican uga dhiidiyeen horta badriyo wax de cusub dhacdo cusub ayaa hayd hawshaasina way jirtay weerarkaasi uu jiray la igu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan la soo weeraray habeen hore ma jirtaa cid aad arinta weerarka aad u aaneynayso ama aad ka shakisan tahay wallahi badriyo horto xilli dambe ahayd goor dambe ahayd anigii Cabdiraxmaan Caydiid oo wada socona gurigan ka soo baxnay dabeedna ilaa 3 gaari ayaan laga soo daatay baadeen anaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horta ilaahay naga badbaadiyay yahay Soomaaliland sidaad ogtahay fawda ma ahan nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay'adaha ammaanka ma u gudbiseen arintiina badro waa lagu horta hawsha waa lagu guda jiraa dawladana baala saciidi waxa ka dambeysay waa lagu guda jiraa way su'aashaday ugu dambeysay aad iyo aad marka hore u mahadsan tahay su'aasha bulshada isweydiinaysa ayaa ah in fanaanka aad ogtahay BK oo Kenya loo soo diiday ayaa leeyahay arintan iyo xiriirkeed iyo qorshaha Facebook-yada arintaas ayaa ku jirta maxaad ka leedahay si kooban wallahi horta taa hal eray baan ka oranayaa badriyo aan waxaan leeyahay horta fanka siyaasadda laga daayo fankiisa siyaasadda meel ma wada galaan nagu faanin baan nahay ereygaasaan oran lahaa fanka iyo siyaasadda hala kala saaro waxa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood arag ka mujireen baraha bulshada qola kale si kala u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee Soomaaliland aad u diraysaa maxay tahay wallahi waxaan u dirayaa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin ani Hargeysa waa magaaladeydii waana magaaladan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa meel kastoo joogtaan aad baan idinka mahadcelinayaa malay mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan annaga wada soconay faahfaahinteedina uu sheegay Maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda meel kastoo dunida joogaan arintan ka ficil celisay haddii af noqoto haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsanyiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo fanka la siyaasadeynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baan u mahadsantiin dhamaantiin arintaasina insha Allah bidnaahi kariim waxay noqon doontaa arin dadka reer Soomaaliland ay wax badan macnaha ay kaga tusaale qaataan aad baan u mahadsantiin dhamaantiin محمد أحمد بكال أو عراق مقع دير أرنتاس أو لحديدي إن سومالان لغو عسوريي أما بلغا شيكت هطبا إن فنانكا حتى يا لجوغنا إن بالأرنتاس نوغور بدر كوسار waad mahadsan tahay waxaan caawa halkan soo fadhiistay horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland sida fiican uga dhiidiyeen horta badriyo wax de cusub dhacdo cusub ayaa hayd hawshaasina way jirtay weerarkaasi uu jiray la igu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan la soo weeraray habeen hore ma jirtaa cid aad arinta weerarka aad u aaneynayso ama aad ka shakisan tahay wallahi badriyo horto xilli dambe ahayd goor dambe ahayd anigii Cabdiraxmaan Caydiid oo wada socona gurigan ka soo baxnay dabeedna ilaa 3 gaari ayaan laga soo daatay baadeen anaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horta ilaahay naga badbaadiyay yahay Soomaaliland sidaad ogtahay
fawda maaha nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay-adaha ammaanka ma u gudbiseen arrintiina bedrow waa lagu horta hawsha waa lagu guda jiraa dowladdana baale saciidi waxaa ka dambeysay waa lagu guda jiraa ha way su-aasheeda ugu dambaysa aad iyo aad marka hore umahadsan tahay su-aasha bulshada isweydiinaysa ayaa ah in fanaanka aad ogtahay BK oo Kenya loo soo diiday ayaa leeyahay arrintan iyo xiriirkeeda iyo qorshaha Facebookyada arrintaas ayaa ku jirta maxaad ka leedahay si kooban wallahi horta taa hal eray baan ka oranayaa bedriyow